dadka Soomaaliyeed guud ahaan qaybaha kala duwan bulshada hay'adaha kala duwan dawladda dhammaan inaan ugu mahad celiyo 4 sano la soo dhaafay sidii wanaagsaneyd ee dalkan uga soo shaqeeyeen waxqabadka weyn ee maanta aan ku naaloonayna ee sababay waxa maanta dhacay eventiga maanta dhacay inuu dhaco sabab u ahaa dadkii ka soo shaqeeyo dhan ama dawladda dhexe joogan ama maamul goboleedyada iyo dalka qaybihiisa kala duwan ha joogan aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo aan iraado shaqada aad soo qabateen oo wanaagsaneyd ayaa sababtay maanta meeshan wanaagsan inaan soo gaadho marka taas dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda ee kala duwan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada bale ma haddaasaan u jeedinaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan hawshan waa hawl laga soo wada qayb qaatay waa ku mahadsanyihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan fursadan u mahad celiyo beesha caalamka ee ayadana 4 sano aan soo joognay xafiiskayga iyo dawladda Soomaaliya madaxweynaha waa intaba si wanaagsan ula soo shaqeeyay soo saaciday soo garab taagnaay muxuu ahaay maanta noo suurto geliyay inaan meeshan soo gaarno nagu kaalmay ayaguna waxaan rabaa inaan mahad celiyo si khaas ah waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dalalka ciidamada AMISOM u soo diray Soomaaliya ee wiilashooda iyo gabdhahooda dhiigooda Soomaaliya ku baxay qaar ku dhinteen qaar ku curyaameen caruur badan ku agoontooday oo dalalkoodii maanta jooga walina qaar ku u taagan yihiin in ay Soomaaliya ka sii saacidaan sidii ay lugeedu ugu istaagi lahayd waxaan leeyahay ayaguna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawaaw oo insha Allah ku fududayo khayr badan iyo guul aan ku rajaynayo waxaan marka hore rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynihii hore sida habsamida leh tiimkiisa shaqaalihiisa ay ula shaqeeyeen tiimkayga transitionka iyo sida habsamida leh ee xil wareejinta u dhacday waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejinayno nidaamka iyo dawladnimada runtii waa maalin taariikhi ah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu bishaareynayaa dawladdaani waa dawlad shacab idinkaas kale idinkaan dib idinku soo celinaynaa
waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan dowladdan oo aad gacan siisaan idinkaa iska leh waxaan idinka rabaa inaad nagala shaqaysaan hadday noqoto canshuur aruurinta iyo dhaqaalaha hadday noqoto nabadgelyada inaad ilaashataan ayaa la doonayaa dowladdan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado colaadda iyo abaarahana haysta ilaahayna aan u noqonno aan iswada cafinno kulligeen dad waalaan wada nahay kulligeen waxbaa naga hallaabay laakiin aan u qaadanna hadda inaan hurdadii ka kacnay waan isweydiinno xaggee joogtaan wakhti fiican yaa soo socda waa wada shaqaynaynaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha caalamka iyagana runtii gacan weyn ka geystay inay dowladdan meesha ay joogtay ay soo gaarto amisom iyagu naftigooda hawl badan bay meeshaan ka qabteen waxay ka difaaceen maxaan ku dhahay dhibaatooyinka iyo dagaalada joogtada ah garab ay ku siiyeen dowladda inay sidaas noqoto oo ay shaqayso waa ku mahadsan yihiin kulli maxaan ku dhahdaa dowladaha ciidamadu halkan ay joogaan waana wada shaqayn doonnaa hadduu ilaah yidhaahdo ilaa aan ciidamadeenan dhisanno kadibna iyagoo dee waalaheenna oo taariikh waddankan geystay ama taariikh ku leh inay guryahooda ku noqdaan hadduu ilaah yidhaahdo waa inaan u mahadcelinno shacabka soomaaliyeed waa inuu mahadceliyaan ciidamadaas siiyey naftooda u horay naftooda maxaan ku dhahdaa wax kasta oo dee bani aadam isu siin karo wax nafta ka weyn ma jirto ugu dambaystii xaalad adag ayaan ku jirnaa waddankan 26 sano wuxuu ku jiray dhibaato iyo burbur iyo qax iyo dowlad la'aan hal habeen iyo 2 habeen iyo 5 bilood iyo 6 bilood waxba kuma hagaagi karaan waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan intii aan wax burburinaynay ama dhib ku dhacayay in la mid ah yaa loo baahan yahay dalkan inuu istaago oo caalamka la tartamo aniga shakhsi ahaan waxaan ballan qaadayaa hadduu ilaah yidhaahdo inaan idiin keeno dowlad aad ku kalsoon tihiin oo magaciina iyo sharafkiina kor u soo qaada oo caalamka la tartanta idinkana waxaan ka rabaa shacabka caalamka inaad la tartantaan